هك هكتاو رناغي مدن مدحوينه كسو دhow aaga taliska gobolka Cayn mudane madaxweyne naas ugu horeyn anigoo ka wakiila wafdiga kala duwan ee baarlamaan iyo fulin isugu jira iyo waxgaradka iyo maamulka SSC-ba waxaan rabaa inaan halkan idinka salaamo hadaatiin ciidanka SSC Khaatumo gaar ahaan qaybta gobolka Cayn ee naftooda horayaasha ah ee dalkooda iyo dadkoodaba difaacaya ee guusha Ilaahay gacantooda ku keenay aad baan idin salaamayaa waxaan rabaa inaan idinku hambaliyeeyo guushii taariikhiga ahayd ee gobolka Sool ka dhacday Gooja Cadde 25 August sanadkii la dhaafay shalayna waa idinku soo hambaliyeenay magaalo kasta oo tagnana waa ka soo hambaliyeenay qoraalana waa idinku soo hambaliyeenay inaan idin nimaadna shalay waa rabnay laakiin hawlihii kale aan magaalada ka wada haynay bayna mashquuliyay marka mar labaad hambaliyaan idin leeyahay intii naga dhimatay ilaa intii halgan ku socdayba intii halgan ku socday waa muddo 12 sano weey wadankeena waxa la soo galay 2002 baa lagu soo xadgudbay inta dadaal baa socday intuu doona hal ekaaday inta ku dhimatay Allah u naxariisto dhaawiciina Allah u boogadhayo dagaaladii naga soo gaaray wixii hanti ay kaga baxdayna Ilaahay badal khayr qaba ha siiyo runtii guud ahaan ciidanka SSC Khaatumo hambaliyada iyo dardaaranka waa wada diraya haddaan u soo noqdo gobolka Cayn Somaliland ama gooni goosatada gardaran Gooja Cadde kumay jabin laakiin hore u jabtay xilli hore jab gaaray dagaalkii Kalshaale iyo dagaaladii dambe isdaba joog ahaa ee ku dhacayay intaba waxay naafeenayeen gooni goosatada ilaa markii dambe la israaciyay oo 8 bilood ugu dambeysay ama 9 bilood ugu dambeysay la israaciyay dagaalkii Kalshaale ragii galay waa fadhiyaan gaadiidkii laga helay barigaana waa ka ina hor yaala iyo hubkii laga helay ragii uumba iyo rag kale oo dhashay oo dib ka dhashay ama ka hana qaaday uumba Gooja Cadde ugu tagay arintaasi waxay marag u tahay riyada ay isugu sheekeeyeen inaysan marnaba suuro galaynin aakhirkana ay dantooda garan doonaan innagana waxa la inaga rabaa sida xilkasnimada leh ee ciidanku u gudanaya waajibkiisa ee u kala dambaynayo in la sii wado haddii hawlgal dhacayana tala lagu galayaa haddii la iska daynayna tala lagu daynayaa laakiin haddii amar kala qaadashadu yaraato wax badan baa inaga xumaan kara marka way idinka mahad celinayna muddada sanadka ah habkii aad u shaqeynayseen waliba jiidani warkeeda waa la hayaa mas'uuliyiinta sare waa hayaan qaabka isku kalsoonida leh ee ay uga wada hawlgalayaan iyo qaabka ay amniga magaalada lafteeda uga qayb qaadanayaan haddaba sanadka bacdi waxa la inaga rabaa wax isbedel inuu dhaco oo ku saabsan ciidanka qaybiis noocyadiisa kala duwan arinta waa ka tashanaynaa waxbaan iska weydiinaynaa annaguna meel uma wada soconaba waa idila joognaa haddii alla idmo gobolkaan fadhiisanaynaa haddii alla ka dhigo waxa ugu horeeya number 1 ana waa ciidankaas in laga shaqeeyo qorshihii laga shaqeyn lahaa waa la isla qaadanayaa taliska guud iyo idinka iyo madaxda siyaasaddu inta way isla helayaan marka insha Allah halka wanaag baa inooga soo socda difaacana halkii inooga adkeeya sidii aad u wada shaqeynaysaan oo wada shaqeeya duruuftaad ku shaqeynaysaan waa garan karnaa xaaladday tahay laakiin waa laga baxayaa maalinba meel bay joogtaa marka walaalayaal
nimankaa iska qaylqaylinaya inaan sahashannana ma aha inayna baqdin gelisana ma aha sahashan mayno oo marka aad qofka cadowgaaga aad sahashato waa marka guuldarradu kugu dhowda marka aadan meel uu jooga geyninna iyada laftigeedu waa dhibaato nimankaasi waxay yihiin waa garanaynaa idina waa garanaysaan insha allah difaac baa inoo ballana idina daryeelkiina maamulku saaran yahay hoosna waa u wada hadlaynaa haddii alla ka dhigo wixii jira iyo xaaladaha jira waa ka wada hadlaynaa wixii wax laga qaban kara waa laga qabanayaa sida ugu dhaqsaha badan aad baan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu